السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا warbixin ku aadan taariikh nololeedka Deeqa Cabdullaahi Aadan. Deeqa Cabdullaahi Aadan oo ah gabar hadda ku xiran saldhigga ciidanka booliska Gaalkacyo isla markaana ku eedeysan in ay rag ahaan ay ku joogtay magaalada Gaalkacyo. Deeqa ayaa haweenka kula macaamiloon jirtay in ay tahay nin ahaan isticmaali jirtana magaca Deeq Cabdullaahi Aadan. Arrintaas waxa ay fashilmatay kadib markii dacwad laga gudbiyay saldhigga ciidanka booliska ee Gaalkacyo. waxaana dacwada ka gudbiyay maamo gabadheeda uu qabi jiray Deeq oo kadib noqotay dumar kadib markii baaritaan lagu sameeyay sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga magaalada Gaalkacyo. Deeqa ayaa muddo 7 sano ah ku sugnayd Gaalkacyo waxa ayna bulshada ay kula dhex nooleed in ay tahay rag isticmaali jirtana magaca Deeq isla markaana ahayd qof caan ah oo dukaan ku dhex leh xaafadda ay deganeed. Deeqa inta ay Gaalkacyo ku sugnayd waxa ay guursatay haween fara badan oo gaaraya ilaa 3 haween ah. Deeqa waxa ay inta badan qaadan jirtay hubka qarsoodida sida bastooladaha oo kale sida dadka qaar ay sheegayaan waxa ay isticmaali jirtay sixir taasi oo u suurta gelisay in ay wax kasta u hirgalaan balse waxa been abuur ah in dumarkii ay guursatay wax ilmo ah ay u dhaleen. Deeqo sida la sheegay waa askariyad ka tirsan ciidanka Itoobiya. Deeqa waxa ay ku dhalatay Soomaalida Itoobiya balse waxa ay muddo 7 sano ah ku nooleed magaalada Gaalkacyo. Deeqa ama Deeq hadda waa maxbuus eedeysan ah gacanta ugu jira ciidamada booliska ee Gaalkacyo waxaana weli ku socda baaritaan dheeri ah sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee magaalada Gaalkacyo. inta ayaynu ku soo koobaynaa warbixintan waxa ay nala wadaagay Maxamed Cabdullaahi Xasan. mahadsanid. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Baris Media subscribe saar gambalelkana taabo si aad u hesho warbixinada